waa sheekadii nin aan marhudho ku dhigay ayaa mahadho igu reebay. taariikhda eray bixinta afka ama luuqadda Soomaaliga muddooyinkii hore waxaa laga alifi jiray sheekooyin ama dhacdooyin markaa loo joogay kadib ayaa loo soo minguurin jiray in laga dhigo halhays ama maahmaah lagu cabiro wacyiga markaa lagu jiro. daawade marnaba ma isweydiisay qaabka ay ku timi kelmadda mahadho ee ay Soomaalidu isticmaasho oo ay dhacdo fadeexad ama guuldarro taariikhda xasuusta gasha marka loo adeegsado looguna dhawaaqo alla mahadho ayaa ku dhacday, mahadho ayaa lagu dhigay, mahadho ayuu igu reebay iyo wixii la mid ah. haddaba waxaa jirta sheeko Soomaaliyeed oo sida aynu warbixintan ka arki karno ah mid aan run ahayn oo la alifay hay'ashee lagu soo gudbiyey kelmaddaas mahadho si qurux badan loogu soo gudbiyey. daawade barnaamijkeenan waxaynu kaga hadlaynaa sheekadaas iyo qaabkii ay ku timi kelmaddaas mahadho waxaana idin la socodsiinayaa aniga oo Mukhtaar Maxamed Diiriye ah, Mukhtaar Jambaq. haddaba sidii caadada inoo ahayd muuqaalka like saar siina share garee si aanu ugu dhiirano inaanu muuqaalada noocan oo kale ah idiin soo tabino. haddaad nagu cusub tahayna kanaalka subscribe saar dawankana furo. mahadsanid. sheekadu waxay ku bilaabmaysaa waqti hore oo adduunyadu bilow iska ahayd oo dadka iyo duurjoogtuba ay nolosha deris ku ahaayeen ayaa waxaa deris noqday nin ay la noolaayeen gabadhiisa iyo wiil uu dhalay iyo libaax aar ah oo keligii nool. waqtigaas dadka iyo duurjoogtuba si ay nabad ugu wada noolaadaan waxay dhigan jireen wacad si aan midba midka kale ugu soo xadgudbin. dagaallo dhowr ah oo ay isku soo qaadeen iskuna soo xadgudbeen ninkii iyo libaaxii dani waxay ku khasabtay si ay nabad ugu wada noolaadaan inay dhigtaan wacad kuna heshiiyaan sidii ay nabad derisnimo ugu wada noolaan lahaayeen. heshiiskaas iyo wacadkaa ay galeen waxaa ku jirtay qodob muhiim ah oo ahaa haddii ninka iyo libaaxa midba midka kale uu wax uga soo baahdo inaanu ka lexe jeclaysan oo ay khasab tahay inuu fuliyo wixii looga soo baahdo ka kale. muddo badan markay ka soo wareegtay isla markaana ay nabad jaarnimo ku wada noolaayeen ninkii iyo libaaxii ayuu libaaxii oo heshiiska ka hor si fudud u heli jiray cuntadiisa markuu weeraro xoolaha ninka ayaa xamili waayey dhibka badan ee uu u maro ugaadhsiga xayawaanada duurjoogta ah. isla markaana wuxuu go'aansaday inuu keeno siyaasad uu heshiiskaas ku burburin lahaa si uu uga raysto dhibka uu maro cuntadiisa. sidaa awgeed in badan oo uu fekeray wuxuu go'aansaday inuu ninkii arrin ka martiyo isagoo adeegsanaya qodobkii heshiiska ka midka ahaa ee ahaa in wixii la isaga soo baahdo aan la kala lexe jeclaysan. kadibna libaaxii oo kalsooni laafyoonaya ayaa ninkii oo fadhiya geed gurigiisa u dhow intuu u yimi ayuu ku yidhi saaxiib waan ku salaamay. ninkii oo salaantii ka qaaday baa weydiiyey saaxiib maanta waad ii timiye maxaa darnaa oo kugu khasbay inaad ii timaaddo? libaaxii oo kalsooniyey ka muuqato ayaa ninkii ku yidhi waar saaxiib wakaa wacadkii aynu gallay aynu nabad ugu wada noolnahaye maanta wacadkaas qayb ka mid ah oo aan u arkay mid muhiim ah in la fuliyo ayaan kuugu imi. ninkii ayaa ku jawaabay isagoo aan waxba iska ogayn arrin kasta oo wacadka ka mid ah waa lama huraan in la fuliyaa mana habboona in la dhaafaa ee sheeg qodobkaa aynu fulinne. libaaxii oo markan helay fursad cajiib ah isla markaana arkaya in ninku dabin u galay ayaa si degdeg ah u yidhi saaxiib ninkow wacadkeenna waxaa ku jirtay qodob ah in aynaan kala lexe jeclaysan oo kala dibdhigan waxaynu isaga soo baahanno. aniguna maanta waxbaan kaaga soo baahday weliba waxaad hayso ayaan doonayaa ee hayga dibdhigan. ninkii oo weli moogan arrinkaa libaaxu damacsan yahay ayaa ku jawaabay saaxiib libaax haddaan awoodo kaa lexe jeclaysan maayee sheego waxaad iga doonayso ee aan awoodo waan ku siinayaae. libaaxii oo markana kalsooniyey sii gashay ayaa ninkii oo iska dacal basar ah ku yidhi saaxiib naftaydu waxay jamatay inay hesho hilibka wiilka aad dhashay ee wacadkeenna ha dhaafina isii wiilkaaga aan cune. ninkii oo markii hore aan dhaadanayn ayaa ku naxay dalabka libaaxa isagoo ka amakaagay siday khasabka u tahay inuu fuliyo dalabkaas ayaa la soo booday saaxiib libaax heshiiskeennu
wuxuu ahaa mid nabadeed, laakiinse qodobkan aad la timi waa mid colaadeed ee wax kala dalbo aan dadkayga ahayn. Libaaxii oo ku jeesjeesaya ninkii ayaa ugu jawaabay, wacadkeenna nabadeed anigoo cuntadayda si fudud ku heli jiray ayuu rafaad imarsiiyey. dee adna hadduu markan wax adag kugu yahay, fuli oo sidayda oo kale samir. nin baa ilaahay kaa dhigaye, anigu wiilkaaga mooye maanta wax kale kaagama baahniye. ninkii oo tala ku caddaatay siyaasad kasta oo uu keeno islamarkaana uu ku badbaadsanayo wiilkiisa ay suuro geli weyday. halkaasna libaaxii uu ku muujiyey inuu diidan yahay kalaabashada arrinka oo waxaa u cad inuu helo hilibka wiilkaas ninku dhalay. heshiiskii nabadeed iyo wacadkii adkaa ee uu ninku hormuudka u ahaa inay dhigtaan isaga iyo libaaxii, maanta isagaa dabin ugu jira, waxaana khasab noqotay inuu bixiyo wiilkiisii. libaaxii oo markii horeba talo uu in badan rogrogayey ninka wiilkiisa ku soo doontayna markii gacanta loo soo geliyey wiilkii ismaguu dhibine si uu uga adeegsado ninkana colaad ugu beero. lamuu fogaan cunista wiilkee, ninka hortiisii ayuu ku kala goostay oo hilibkii wiilka ku cunay. markuu laastay hilibka wiilkii ayuu si jees ah ninkii ugu yidhi, saaxiib waad mahadsan tahay, waa inoo kulan dambe. ninkii oo ciil iyo cadho la jiifsan waayey islamarkaana arkayay wiilkiisii oo hortiisa lagu cunayo, awoodna u waayey inuu badbaadsado wiilkiisa, ayaa murugadii haleeshay awgeed ay dani khasab kaga dhigtay inuu keeno siyaasad uu kaga aarsado libaaxa wiilkiisa sida cadiigsiga ah ugu hor cunay. muddo badan markay ka soo wareegtay oo maalin iyo habeenba uu ka fekerayey aarsiga libaaxa, ayay maalintii dambe hortimi fikrad uu u arkay inuu kaga aarsan karo libaaxa. ninkii ayaa u soo dhaqaaqay libaaxii iyo dhankii uu ka xigay. libaaxii oo hurdo godkiisii islamarkaana u arkay in ninkii ka samray wixii uu u geystay ayuu ninkii soo dul istaagay. libaaxii markuu arkay ninkii oo dul jooga ayuu weydiiyey, saaxiib maanta miyaad isoo booqatay? markaasuu ninkii ku jawaabay, haa saaxiib libaax, ee waan ku salaamaye, dibadda u soo bax aynu iswaraysanee oo inakeen geedka hoostiisa. libaaxii oo isleh arrinkaa ninku u socdaa iswaraysi ma dhaafsiisna oo aan dareensanayn siyaasadda ninka, ayaa ninkii u soo raacay geedka. kadibna ninkii weydiiyey, saaxiib ii warran maxaad maanta u socotay? ninkii oo aan muujin ciilka ugu qabo libaaxa ayaa ugu jawaabay, saaxiib libaax, wacadkii inoo dhexeeyey wax badan buu dhexdeenna ka hagaajiyey oo waa tii kal hore xataa wiilkii aan dhalay aan kuu haniyeeyey. libaaxii oo dabacsanaanta ninka ka muuqata ay khaladay ayaa ku jawaabay, saaxiib waa runtaa, nin wanaagsan baad tahay, anigaba haddaad iiga soo baahan lahayd mid ka mid ah dhashayda waan ku siin lahaa, balse waxaan ahay libaax keligiis ah oo ma haysto dhal iyo libaaxadba oo keligay baa nool. ninkii oo markii hore ogaa xaalka libaaxa islamarkaana ku soo tashaday inuu libaaxa rafaad mariyo islamarkaana diidan inuu si fudud nafta ku dhaafiyo libaaxa, ayaa libaaxii ugu jawaabay, saaxiib libaax, maanta aniguba waxaad haysato ayaan kaaga soo baahday ee waxaanad haysan kugu dhibi maayo. libaaxii islamarkaana isleh ninku arrinka uu kaaga soo baahday sidaad u rafaadisay oo kale maaha ayaa ku jawaabay, saaxiib haddaba i weydiiso waxaad doonayso, aniguna kaa lexe jeclaysan maayo oo sidaad iigu hagar baxday oo kale ayaan kuugu hagar baxayaa. ninkii markuu isku hubsaday in libaaxii uu markan dabinkiisa qoorta la galay ayaa yidhi, saaxiib libaax, maanta waxaan marti kaaga ahay oo aan doonayaa inaad i siiso waa haraggaaga quruxda badan ee hayga lexe jeclaysane, sidii aan kal hore oo kale heshiiska u fuliyey adna yeel. libaaxii oo ka naxay dalabka ninka ayaa la soo booday, saaxiib haraggu waa qayb ka mid ah naftayde, wax kale oo aan haysto dalbo aan ku siiye, arrinkani waa mid adage. ninkii oo markii horeba qorshahan ugu tala galay inuu libaaxa nolosha ku rafaadiyo ayaa ku adkaystay inuu helo haragga libaaxa. libaaxii dadaal kasta oo uu ku badbaadsanayo haraggiisa oo uu la yimina way fashilmeen. ninkiina arrin kasta oo libaaxu keeno diid. markii uu libaaxu arkay arrinku in aanu marayn ninka ayay dani khasab tiri inuu oggolaado dalabka ninku la yimi. ninkiina isagoo cadiigsanaya islamarkaana libaaxa dhadhansiinaya xanuunka uu ka dhaxlay kibirka uu ku cunay wiilkii ninku dhalay, aakhirkii ninkii ayaa haragga kala baxay libaaxii. kadibna libaaxii oo dhiigku ka daadanayo ayuu qunyar ka dhaqaaqay, si jees lehna ugu yidhi, saaxiib waan sii soconayaaye nabadgelyo. libaaxii oo naflacaari ah oo la ildaran xanuunka ka haysta hilbihiisa qaawan ee haragga lagala baxay ayaa ninkii oo la sii laafiyoonaya haraggiisa gacanta u taagay. markii uu tegay ninku ayuu libaaxii is yidhi, orodoo naftan silcaysa gee hoggeedii, hadday doonto halkaa ha ku dhimatee.
ileen jabbo waa ka dambeeyee markuu ka dhaqaaqay hadhkii geedka ayay damaqday kulaylkii qorraxdu markuu xanuunsadayna xanuunkiina dareemay kadibna si degdega ayuu hadhkii ugu soo cararay haddana ileen waa naf dhaawacane oo dhiigaysee taagnidii ayuu awoodi waayey kadibna fadhiiso ayuu is yidhi saa waxaa damqay riiddii iyo xansaskii yaryaraa ee dhirta waxaana ku soo ururay udhanjadii oo hilibka soo urisay markuu damqadayna wuxuu is yidhi waxba ha fadhiisana taagnow haddana waxaa ku soo ururay haaddii iyo shimbirihii oo doonaya inay cunaan hilibkiisa gabalku markuu dhacayna dugaaggii ayaa soo weeraray habeenkii oo dhanna waxay u ahayd difaacuu difaacayo hilibkiisan qaawan ee bannaanka yaalla libaaxii markuu arkay dhan kasta oo uu u dhaqaaqo islamarkaana uu dan moodo inuu kala kulmayo oo ay kaga horreeyaan wax naftiisa dhibaya ayay dani orod bidday si uu dhibkaas oo dhan uga badbaado wuxuu orodkaa iyo rafaadka ku jiraba waxaa ku soo baxay libaaxyo dhiggiisa ah kadibna waxay weydiiyeen waar libaax sidan maxaa kuu galay oo naftaada maxaa halaagay libaaxii oo dhibkii hore u dheeryahay daal iyo haraad ayaa si diifi ka muuqato ku jawaabay war saaxiibayaal nin aan marhudho ku dhigay ayaa mahadho igu reebay hadda waa nin aan marhudho ku dhigay ayaa mahadho igu reebay sheekadeennii aynu kaga hadlaynay sida ay ku timi kelmadda mahadho halkaas ayay ku eeg tahay daawade haddaad sheekada ka heshay ha ilaawin inaad muuqaalka layg saarto si sheekadani dad badan u gaadho annagana aad noogu dhiirigeliso sidii aannu idinku soo gudbin lahayn sheekooyin noocan oo kale ah intaynu sheeko ama warbixintan oo kale ah dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa ilaahay baa weyn ammaano allah